wadamadan aan joogno aan waxaan ka joogaa wadan la yiraahdo Sweden waxaan ku noolahay caasimadiisa labaad waxaan ku noolahay xaafad populationkeeda badankeedu Soomaaliyahay Soomaali ka kala timiday dhammaan gobolada Soomaaliya waxaan hadalkaasi ku soo yar qaatay waxa jira dad yow waalido ku fikra inay ciyaalkooga dalkii u diraan si ay wax ugu soo bartaan waalidadaasi markaad la kulantid badankoogu aanay ku arkaan inaad reer Boorama tahay ama lagu soo sheego waxay ku weydiinayaan say nolosha Boorama tahay dawadu yar dul maraysa inta warkaysid waalidadaasi waxa farxada inay soo go'aansadeenba inay Boorama ciyaalkooga u diraan maadaama oo bulshada reer Awdal ay suuqa u gashay aanay yihiin babade dad xadaariyena lala noolaan karo aqoontu biyo dhigatay waxana sababayso in aqoonyahanka Soomaaliyeed shakhsiyaadka ugu saameynta badan leh waxay ka soo jeedaan reer Awdal ama beelweynta Gadabuursi haddaba su'aashu waxay tahay magaalada sidaas oo dhan dadku ugu fikiraan xitaa qurba joogtu inay ku soo hiranayso inay dadkooga wax ka soo baraan shakhsiyaad debla u jooga inay isku dayaan inay annaga oo Ilaahay naga dhaliyay dadkaasi aqoonta leh uu naga dhaliyay ugaasyadaasi salaadiintaasi waxgaradkaasi populationka inta leeg inuu dad loseries oo wasiir ah oo failed ku noqday tii ay iyagu gacanta ku hayeen intay media soo fadhiistaan gobolka Awdal masaylkiisa ka hadlay qaar baa u subcinaya naga soo jeeda waxaan u sheegayaa dhammaan bulshada reer Awdal waxa la joogaa waqtigii qof kasta oo waxyaabo beena suuqa inaga gelinayaan gacan bira ku qabanay ama ha u dhashay Gadabuursi ama Soomaalida kala baaha wada ficid u dooni saaxib way dhamaatay xilligii hada la iskula meereysan jiray